barnaamijka ka hadlayo waa adeerjeekii oo la wareystay oo dhahay ajakis wuxuu dhintay sigaar adeerjeekii okay aabbe sigaar uu dhintay videokan views inaan ku helo musoo galin laakiin xaqiiqada inaan dadka u sheega u soo galay inaan been loo tahay adeer kule ina adeer ku dhaw waa ka xishoonayaa qof laba dad inaa u jawaabo kuwa jeekii u jawaabo adeerjeekii u jawaaba laba waxa u jawaaba sheekayar adeerjeekii wax kale kuma haysto adeerjeekii aabbahay asal lama dhalanin isku aabba ma ahan ninka isbitaalka geeya ma ahan kale ani xataa telefonka inaan kaa soo waco adeer saas maxaa u samaysan ku dhahay sababtoo adaa doqon noqday runta kaagala hadlaa inaan ku dhaw maan doqon adeerkayaa tahay inaan ku ixtiraamo waayo laakiin waxyaabaha samaysa doqonnimo waayo aabbahay saaxiibkaaga waaye lacala hadduu kansar xataa u dhinto saaxiibkiisa tahay xataa inaa bulshada u sheegta ma ahan يا تكس وادي خلاص ما أنت مسلسل بس بافوس ودي أنا أبي رواية حكي دجاننا أبي رواية ميدين نخضر لعك دارت ملك الكراسة فيو صدارتن ملك الكراسة أبي كهرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا أصحابته وسلامتهن ميرول بودين الضافة ذاك الجوكتان وأمركلي ولكن حنف حاج محمود وذين كلا هذا يدرانا ميديا فضلا هدي أكو عصبت الشانل كيجا سبسكرايب كده كسي وشارك الله فين لينك لا كسي دبال كم دجال كقرال كسيده هوسود هذا شلي هدينا داون جست سبسكرايب لان فضلا ما أنتي نوصل هذيك وما حسن جنبال الكنا فرصي يكوسو جاران مخالول بانسو بدلنا يسكسو نقد عن أونكسن إيه مخال عصب مخال كان ما أنتو حن أقعد لدونا أرين حساسية أو أباهن إن لجهله هدي أنك آمسنا دميرك أي عذابه إلى صعدة أصحاب تخالقة اسكسو نقد عن أونكسن أرنت أنك هدلي ربو حساسيك waxaan u kala qaadi doonaa saddex qayb sida ay u kala qaadan tahay waa macna 24 bishii la soo dhaafay September waxa magaalada Muqdisho xanuun si kiris ah ugu yimid majaajiliistaha wadaniga ay dadka si aad u jeclaayeen Cabdi Muriid Dheere Ajakis 27 isla bishii September wuxuu ku geeriyooday isbitaalka Yaldimeri magaalada Muqdisho gaaraan xaafadda Xamar Jajab markuu jiraday ilaa ii geeridiisa ilaa ii hadda ay maanta bisha tahay 3 Oktoobar waxaa jira barbagaando iyo buuq fara badan oo ka taagan baraha bulshada erayadaas oo ay isdhaafsanayaan dadka ka kharaabta ama ka shaqeysta ama hunguriga oo ka galay baraha bulshada hadii ahaan YouTube-ka ama Facebook-ka waxaa bariyahanba soo kordhay dad caan ah magac ku leh bulshada dhaxdeeda oo wiliba qaarkoodna ay ka mid yihiin dadka ugu dhawaa saaxiibka la ahaa Ajakis in ay warbaahinta soo galiyaan war aan ku habooneen marxuumka iyo dadkii uu ka dhashtayba iyo wiliba dadka Soomaalida taageeradu ahaa ugu horeen waxaan ku bilaabi doonaa nin kale yiraahdo JK sidoo sheego ama warba oo ka hadlo wuxuu yiraahdaa Ajakis saaxiibkayga ayuu ahaa macalinkayga ayuu ahaa muddo ayaan soo wada shaqeynay sida aan ognahay qofka markuu dadku ugu dhow yahay markuu xanuunsado ama jirado ama geerida ay ku timaado adiga dareenkaaga iyo damiirkaaga waa isbedela oo waxaad noqonaysaa qof jirkiisa oo dhan ku ayo kale ma yeelan kartid damiir in aad kaamira rakibato hortaada soo dhigato aad saaxiibkaaga markaas ugu hadasho adigoo raadinaya views ama lacag shaqeynayo hal video aad soo dhigtid xiligaas $2 ama $4 haduu ku shaqeey maxay faa'iido leedahay weerar aan ku weerarayo ee JK oo kaliya ma waxa cabasho ka ah ama ka soo cawday JK wiilka oo dhalay Ajakis Maxamed Jacaylo oo sheegay JK inuu been loo yahay oo ku been abuurtay marxuumka Cabdi Muriid Dheere Ajakis in uu yiri Ajakis wuxuu u dhintay sigaar cabid fara badan sigaarkaas oo dhaawacay ka soo gaaray sanbabadiisna ay dib u geystay sidaas ayuu ku dhintay JK runtii hadalkaas asaga warbaahinta ayuu u sheegay muuqaalku waa yaala waraadin doontan xumaan kama ahayn laakiin ereygaas wuxuu dhaawacay familka iyo wiilka Ajakis ayuu dhaawacay aniga shakhsi ahaan personal xanafi ereygaas markuu warbaahinta la tagay aad ayaan ugu carooday sababtoo adiga markaa tahay qof fani ah road modelna u tahay bulshada majaajilista aad tahay ama jilaa aad tahay ama heesaa aad tahay marka warbaahinta horteeda taagan tahay waxa lagaga baahan yahay warkaaga inuu xakameysnaado
oo macnaa maxalkiisna aad ku fadhiisid in aad iska hadasho waa laga fiican yahay hadda ka horna markuu dhintay dooli allah u naxariistee asagoo xawaasha la joogo sidaas oo kale war aan ku habooneen ayuu marxuum dooli ku yiri asagi iyo Axmed Saadaq Yacko oo isla taagan Yacko oo murugaysan ka tiiraysan ninka saaxiibkiisa ah dooli oo dhintay geeridiisa ka nacsan JK wuxuu u hadlay si jes ah aan ku habooneen marxuumka inuu uga hadlo maantana wuxuu ka hadlay Ajakis laakiinse Maxamed Jaceylo ayaa soo fadhiistay bartii Ajakis official kana hadlay JK inuu nin xun yahay adeerna la dhihi karin uusan istaahilin in adeer la yiraahdo adeer JK wax kale kuma haysto adeer JK aabahay asal ma dhalanin isku aaba ma ahan ninka isbitaalka geeyay ma ahan ninka oo boonooyinka lacagta dhiiba asma ahan ninka dhakhtarka la hadlay asma ahan barnaamijka ka hadlayo waa adeer JK oo la wareystay oo dhahay Ajakis wuxuu dhintay sigaar adeer JK okay aabe sigaar uu dhintay dhakhtarka uu ku sheegay waayo baryahan oo dhan geeridii iyo jiradii Ajakis ayuu wuxuu ka dhigtay musalsal asagoo lacag ku raadinayo VHT email koolada lagu cabo inuu tago aweesbaafo inuu soo wado adiga muuqaala fara badan ayuu ka sameeyay si uu fiyus ugu sameeyo wuxuu iloobay ceesho milixi saaxiibtinimadii wada shaqeyntii intaas oo dhan ayuu ilaabay wuxuu ilaabay Ajakis inuu ahaa nin muwaatin ah mujaajilista ummadana ay jeceshay saaxiibtinimo ma aha dhunta diran ugu fidsan nin xishoonaya ma markan JK halkaas ugu baxrin xishooda ma aha نبي صلى الله عليه وسلم وحول يا فإن لم تستحي فاصنع بما شئت هدي آذن حشونين وحال وحارة السماء لكن إسلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحول الحياة شعبة من الإيمان حشوتك نفس الكيسة قيم إيمان كبر كيسة معنى هذا وحامشي كدريمسا قفك هدوسن حشود لهن إيمان ملها دين ملها وحو كحشوناي يوحو فيريناي ملها شلماتك أكلي أيا أدرن JK فيلن كان وقف شلمي وحان له لها أنيغا نصيحة أهان أرين كان وقف شلمي أولاد أو دل Ajakis إنه رالي جيلون ويديستو أبولوجيسنا أو كبحي مادام جفكاس أو كدعي JK مركان هالكاس أو هرو وحان أصون خندونا نينك اللي يرى هذا باب جي وحان ليه دون دين حنفي باب جي محو كروا أنيغا نعيب قارو مخبو لكن باب جي وصوفة ديستي هذا الأيو شيء هذا الكاس أساق ولا في عينه dad badan waxay u arkeen inuu fiican yahay laakiin hadalka uu jeedi wuxuu ahaa maadaama Ajakis intaasoo dad uu ka qosol siin jiray ayuu yiri hadda waa u dhintay waxaan u baahanahay $50 in la soo arooriyo si ilmihiis wax loogu qabto taas meel ka dhacway oo loo geystay familka reer Ajakis iyo marxuumka naftirkiisa ciyaalkiisa meel loogu dhacay hadii ay wanaag ka tahay Baba J adiga naftirkaaga waxa kugu filneed intaan warkayga u gudagelin warkaas waxa ka soo jawaabtay Nimca Axmed Hebe oo ayadana muuqaalka Baba J soo qaadatay oo tiri Baba J warkan aniga waa kugu diidanahay ee qaadameyn oo kugu dhaliilaya Nimca waa mahadsantahay aan leeyahay waxa kugu habooneed maadaama ay fikirkaas ka imaad inaadan baraha bulshada la soo fadhiisanin sababtoo Ajakis nin loo tuugsado ma aha waa ka magacweyn yahay nin lacag loo raadiya ma aha waa ka facweyn yahay tol iyo kharaabo iyo ehl ayuu leeyahay teeda kalamaad Ajakis ilmihiisa way shaqaysanayeen Maxamed Jaceylo nin shaqaysto baxaar oo bad baax waay waa ogeedan hadda koor sidoo bad ugu jiri inay Maldives oo ka dhacay ay dawladda soo celisay aabihiis oo jooga ayuu shaqaysanay sababta loo tuugsanay oo loo bahdilay maxay tahay marka Baba J adiga arinta way kula saxsantahay laakiin waxa kugu habooneed in istiraadaan dadka ay wada shaqeynta soo dhaxmartay hadii ay warbaahin noqon lahayd hadii turjumaan filin ay noqon lahayd hadii jilimtaanka filinka ay noqon lahayd in meel isku imaataan tiraadaan lajankeena macalinkeena walaalkeena waa geeriyoodi Allah u naxariisto sakaraadka Ilaahay waa mootii su'aashana Allah dhaafiyo ciyaal ayuu ka tagay sideen ka yeelna annaga kulligeena waa wada shaqaysanaa bishii lacag ayaan sameynaa ilmahan sideen wax ugu qaban karnaa nin walba awoodiis wuxuu haay inuu meesha ku soo bandhigo idinka wax iska aroorisaan ayadoon cid ogeynin barfaad ah waxay idinka soo baxo aad isku aroorisaan ilmihii aad u geyseen ayaa qurux badnaa idinkoo baraha bulshada la iimaanay hadii baraha bulshada la iimaado macnaheedu waxay tahay adiga inaadan waxba suubineenin dantaada oo kaliya u soo fadhiisatay adigoo fiyus raadinay oo kaliya taasna ceeb ayay kugu ahayd Baba J inaad sameeyso
aniga kulay taba arinka meeshan ka arkay haday daacad ka tahay niyad ay ka tahay waa fadhiisan lahaydeen adii iyo jameecada kale waxa dhihi lahaydeen maadaama aan koox wada ahayn meel ka soo wada jeedo maanta ilmahan meel aan ugu soo wada jeesano arintana barfaat ay aan leeyahay baabujeyna dhankaas ayaan ugu gudbay waxa kale oo la sheegayaa Umar Shooliga ku nool Mareykanka oo fanaanka ah asagana in la sheegayaa lacag 7,000 gaarayso inuu ku aruursaday magaca Ajakis inuu ku aruursaday ayaa la sheegayaa nin ayaa baraha bulshada la soo fadhiistay oo dhahay Umar Shooli ayaa lacagtaas aruursaday asagoon ilmihiisa dhihin Allah u naxariisto ayuu $3,000 intuu aruuriyay $500 ayuu ka siiyay $2,500 asaga dhuunta fidsaday arinkaas baraha bulshada isla JK iyo dad badan ayaa soo fadhiistay ayagoo wanaag muujinay oo isdhahayo Ajakis oo heeliya waa la dhacay ilmihiisa xaqii agoonta maqan war xaqii agoonta maxaa ka fikirtaa JKO adigii ayaaba aqliga kugu yar nin anshax xun ayaa tahay nin damiir leh matid nin naxaya matid nin xishoonaya matid adigi iyo baabujeeb waxaa tiin laba aqsunas ayaa tiin runta markaan idin sheego Soomaaliya horta waxa ogaateen ninka markuu iska dhaadhicay inuu war badan yahay oo warkiisa badan bato iyo aqoontiisa cilmiyeed badato khaladkiisana uu badan yahay marka aniga bariyahanba YouTube-ka ma soo galeen Ajakis maalinta uu xanuunsaday maalinta uu dhintay wallahi inta qadka soo galay horta Allah u naxariista ma dhihin umadana uma tacsiyeenin fayuusna kuma raadinin mana u soo fadhiisanin runtii waa ka xumaaday waa ka naxay maalinta xanuunkiisa aan maqlay marka uu dhintay murugtaan dareemay Soomaaliya dhan ayaan murugta la dareemay ducada dhankeygan ugu soo duceeyay ilaahan u bariyay inuu su'aasha ilaahay dhaafiyo kitaabkiisa midig ka siiyo jannatul firdaws al-aala ilaahay ka waraabiyo ma ku raadinin fulus ma ku raadinin lacag ma ku raadinin fayuus sababtoo ma biistaado annaga gunnimo waxaa nagu filan inaan Soomaali ka dhalanay gunnimo waxaa nagu filan inaan Soomaali ka dhalanay sababtoo ah caalamka ama adduunka dadkooda la jannada ah haday ahaan leh comedian haday ahaan leh laxamiiste haduu ahaan laha shaacir haduu ahaan laha heesa haduu ahaan laha toore nin walbo khibrad faneed leh umadan madadaaliyo rood model u ah haduu nool yahay hadii uu dhintabo xurmad gaar ayuu ku leeyahay haduu dhintane waa la xusaa si qurux badan loo wanaajinaa meedkiisa iyo dikrigiisa iyo xasuustiisba wala wanaajiyaa sanad walbana si gaar ah loo xusaa laakiin annaga fanaaniin fara badan ayaan lahayn qaarkood cudur ay u dhinteen cid caawisay male macadalika caaya loogu daray caayme qaarkood intay microphone soo qaateen iyo camera ay ku kharaabteen wixii ka soo galan ayaga yacneen Soomaalida aan ka dhalan waa noocaas gunnimana waxaan ugu filan inaan Soomaalinahay hadii qofka marxuumka shalay dhintay maanta in lagu kharaabanayo asagoo ka hooseeyo duco u baahan caruurtu ka tagay kaalmo u baahan in aan magaciis ku kharaabato lacag ku qaadato misna aadan wax ka siinin adigoo iska dhigay ilmahaas ina u hiilinaysid Ajakis u hiilinay in aad kaamira soo qaadato aad duubato YouTube-kaaga aad soo gashato xayasiin aad ku xirato lacag oo ku shaqeeyo kaas dameer xumaan u arkaa dadnimo ma aha marka JK iyo baabujey meeshan ilka filay ma ka soo bixin waxa tiin dadan dhiig leheen dameerkoodana uu aad u xun yahay waxa idin leeyahay apologies waa inaa ka bixisiin baabujey aan warkaaga babi ilo xuma waxa adiga عقلي وحابة كده رأي إن علمه وحلو خبطه بس وحا كادنت أرنتاس إن أبريفت كديكت هذا بابليك كديكين اسكو إماتان دتك اسكو يرتو جوجل أو ديكتو وذا هذا شان وحي كصوبحان علمها لو قديقه وحول بنا بربات هذا صوته Ajakis جيس أيوها ودنا أيوها نيش قيستا أيوها عدي سجداشيس اللي جاب أرك جرين ما أنت كهر عدة Ajakis اللي بأرك جرين حتى ويلكيس براه برشة اللي جاب أرك جرين أساق دبول جرين وادنتي الله نحرسته هدي آذن وحبة سمين كرين أفكينا كعشتا خبريجيسا هايدين كجرو إلهي كبخا خبريجيسا هايدين كجرو ابن آدم متين رونتا درين إذن كيف في السن سبب توقف كدو باهي كسوكرو أو باهي لي كسوكرو وعوك حشونا يمل وحونا له وربا مكتاي مركز حابتي إقرأ على اللحظة خيرة إيقا كندي مركا أركي محمد جعيلو أو كعبنا يطلع أذير جيكي إنهم كلوا أذير حتى يقوم هبونو لكن جعيل أبيغا أنخو أذير كلوا يقو وحابر برباهن تكتري أبيغا إنه ودنت عذر سنببه إنه كعدادين سيجار إنه دلي تاسن ما بكوجو هبونين أذيك شوكولاتة ما عبتا مسبية عبتا أذيك أنا كرفنت هذا الديارسو إلى سيجار وعبتا جيدها نواشدة تاعي مالنت هذا ولا جاري دونا مركا مو خالك هل كان أيون كسو جبينا يا
فإن لم تستحي فاصنع بما شئت هدي آذن حشونين سمي وحاربتك لكن أقو الحياة شعبة من الإيمان إيمانك دفتر كيسا بقى حشوتك أيابا أهبا إيمانك بركيس مخالكي هل كان ينكسو قبل نباديني ينول